xaajada ku yimaado laga qala qabsina aan ka qalay bay ahayd jiingada sare guriga anaa ka bedelay cid kale kamay bedelin cid ka bedelaysaa ma jirto guriga waa aabadegaya waa da-ayay saasay u shubay suuligii wuu buuxsamay yaa lacagtii markaa la iga caawiyey berigaasay baarliin iyo daara calasow iyo dadka ah ay iisoo dirdireen waataan aabba jiingadana kaga bedelay jiingadana wanigii ka bedelay qofiska sare wuu daadinayay biyaha ma garatay suuligii wuu buuxsameeyey intaasoo sare cidimay hagaajin lacag buuran oy soomaalidu isla ogeyd oo intaa ahayd mooyaane oo aan jiingadana ku bedelay aabba ilkaha sare aan ku sameeyey labada iyaga hoose mooyaane oo waxa weeyaan maraartii aabba ku taala laga camaliyadeeyo guriga lagaga hagaajiyo ma ogiya oo waxoogaa yar gaaranaysay 3,000 mooyaan lacagihii kale oo dhan oo ciidda ka badnaa aniga walaal ma arkin dadkii ii sameeyaa qaatay runtan inii sheegay walaalana beenta ma aqaano anigana tiktok sida loo samaysto ma aqaano wallaahi bilaahi tallaahi hadda tiktoktan 2 bilood baan inaga maqnaa mise 3 bilood naagta loo yartaydaan u tagay waan u sheegay fiidiyoyo aan leeyahay baan tusay waxaan dhahay tiktoktan ka hadlaa lacagta sida loogala baxa ma aqaano dad baa ii sameeya way iga xidhaan gmailka ma samaysan aqaano gmail ii samee wallaahi markiiba way ii samaysay dhag waxay tiri qofka galana anaa la soconaya bay tiri iPhone-keeday ku jirtaa lacagtu markay kuu soo dhacdana bangigaaga halka lagaga xidhiidhinayo anaa ku tusaya bay tiri sawirka kuu saaran iyo gmailkaagaas haddii 10 jeer lagaa xidho bay tiri aniga i weydii bay tiri anaa soo celinaya message baan qorayaa wixii horena lama soo celin karo mar haddaana gmailkaaga ku samaysano gmail dad kale ku samaysay oy dad kale sameeyeen iska ilow bay igu tiri laakiin taa hadda qofka kaa soo faragashada 60 daahir baan ku tuurayaa bay tiri adna wax qalada iyo askar iyo waxa hayska soo galin bay igu tiri haye baan ku ori intee baan baryayay iyada intee baan daba socday 7 baan sugayay waxba kala hadlayadaan hayay wadankayga ma degana magaalo yaroo waxay degan tahay saacad ii jirta walaa waxaasoo dhan naag shisheeye ah oo caddaana intaan aaminayo oo idinka idin aaminayo walaal idinka dhiganayay soo igamaydaan saarin ayaan tilmoon sida ii gashay iyaduna bujuu siduu ii galay weli waxaan sii xasuustaa tiktoktaydi u falowdii loogto intay cirka galeen halkaa taagan yihiin fiidiyoyadaydu oo aayar uun layga dhex saaray oonan fiidiyow qaldan soo gelinin oonan wax qaawan soo gelinin oonan waxba samaynin oo walaalkii ii sameeyey uun aayar u idamcay waxaan ogaaday inaan Soomaaliyad ahay oo Soomaaliya damaca ka socdaaba marka aniga waan caqli badanahay waan fikiray markaan fikiray waxaan ogaaday inuu Soomaaliya damaca ka socdaa uu yahay damaca la isku dilayaa inuu damaca yahay baan ogaaday damaca Soomaaliya ay isku dilaysaa walaal waad mahadsan tahay libaaxa tahay damaca la isku dilayaa Soomaaliya inuu damaca yahay ayaan ogaaday markaasaan dhahay waxa tiktoktaada lagaaga qaatay dee waa damacii Soomaaliya ka socday weeyaan adiguna Soomaaliyad baa tahay waa run maxaa Soomaalinimada ku diidaa dee waa dhaqanka Soomaalida waxani baan dhahay waa fahmay waa dhaqanka Soomaalida ayaan dhahay laakiin aniga walaal weligay qof ma damcin aniga weligay qof ma damcin xaqiisa ma cunin aniga mar xitaa aan xaafadaha u shaqeey xitaa xaafadaha marba lacagaha qaar ba wallahi carabta ii diidi jiray weligay laakiin xaafad Soomaaliya oo lacag ii diiday ma garanayo xaafadaha carabta u shaqeyn jiray wallahi qaar badan ba xitaa lacagta ii diidi jiray xitaa taleefankayga qaadan jiray Sacuudi Carabiya markaan joogay somaydaan garanin yaa aniga lacagtaad igu tiraadeen Soomaaliya ku dhoof waan ku dhoofi karayay maalintii lacagtii 2,000 mise 3,000 ee daahir cali soo idin ka soo qaaday imaydaan siinayna caydii daahir baanad igu siiseen markuu daahir idin caayay baanad siiseen isaaq kale ma ahayn reerkaan ahay maalintii aan isdhahay reerkaa tahay ee habar awal baa ku caawinayana reerka habar awal ee tahay baa ku caawinayaan habar awal fuulay habar awal baa wax ku siinaysa isdhahayna ay dhibaatadayda ogaadeena habar awal jilib bay isku kala qaadeen jilib ayay isku kala qaadeen jilib baa la isku kala qaaday walaal waan idin soo sheeka dhaafaye
sheekadii baa naga ilaabayay inama waxaaja reerkan anigu ahay ah oo sacad muse iyo ciise muse iskugu jiray oo baaltoo tegay oo club house tegay oo Facebook tegay oo sawiradayda qaatay oo lacag 18,000 magacayga ku urursaday وجي online ka mid yahay 18,000 magacayga ku urursaday baa jira ya oo reerkan ka dhashay Soomaaliyeed reerkan ka dhashay intay ururiyeen dhahan gabadhaas la caawinaya maalintay lacagtii lacag noqotayna intay isku wada dileen ya halka kala baxay lacagtii aniga la igu tala inanba ila soo hadashay Canada joogta waxay igu tiri $500 baan sahray bixiyay bitri lacagta hablaha oo kaliya laga guray bitri $600 bay ahayd sidee baana xitaa 600 lagaaga soo gaarsiinin bay tiri $600 sidee baana xitaa lagaaga soo gaarsiinin bay tiri ya lacagta leeyma soo gaarsiinin leeymana siinin afkana leeyma saarin markii dambe maxaa dhacay iyaga iswada laayay ciise muuse sacad muuse isku laayeen iyaga isku fadhiistay media ana xaqaygu ma halaabo xaqaygu ma habaabo inamadii iyaga media isku soo fadhiistay oo iscaayo afar isku qabsaday oo ciise muuse sacad muuse isku caayay oo inay aniga lacag igu cuneen oo lacagtii qaateen hablaha lacag ka gureen waliba hablaha maxaa la yiraahdaa meelaha qurbaha kala jooga ay ka gureen iyaga isku caayay isku soo cadeeyay taasaa jirtay dhibaatadaana waxaan kala kulmay reerka ciise muuse la yiraahdo iyo reerka sacad muuse la yiraahdo in ka soo jeedo daahir calasow oo nin hawiye ah baa ka dhiidhiyay oo dhahay war gabadhaad xoolaheeda intaad magaceeda ku urursateen oo baahan oo gabadh Soomaaliyeed ah oo maalin walba halka oo dhibaataysan ya in la caawiyaan rabaa buu dhahay in la caawiyo ayaan rabaa buu dhahay wallahi maalintu daahir hadlay ya daahir hadlay ayay qaar luuqa yar iyo soo galeen habeenku daahir hadlay baan anigu jiingada yaran aabahay ka qaaday lacagtii iga soo gaadhay ya halka iga soo gaadhay walaal waxna inagama qarinaye ya iga soo gaadhay maalintu daahir hadlay baan helay ya ma garateen taana waxay iyagu isiiyeen oo gaar isiiyeen may ahay daahir baa hadlay oo meeshayda daaqadayda soo qabsaday markuu daahir hadlayna inan $100 bay soo dirtay inan kale adoo lacagtii waxay noqotay 2,500 miyay ahayd 2,500 markay noqotay jiingadan aabahay ka bedelay waxa weeyaan kaniinadii oo dhan baan soo iibiyay waxa weeyaan gurigan ka hagaajiyay lacagna waan taqaanan laba waxaan soo iibiyay aabahay waa nin weyn oo waayeela laba makiinadood oo makiinadaha dharka lagu tortolo Soomaalidan arag oo kuwa dharka lagu tolo iska waaweyna laba makiinadood baan soo iibiyay suuligii baan ka bedelay waxa weeyaan ilkaha sare misal iga siiyay $700 baa liiga siiyay walaal xiritaanka lahayn ilkaha sareen aaba u sameeyay anigu shilin lacaga kala ma qarin haddaan dirac qurux badan xidho TikTok tadiga arki lahayd in isku soo duubi lahaa aniga dadka dharka qiimeeyay meehi dadka waxaa qiimeeyay meehi dadka inay xaragoodaan waxaa jecel meehi la-anno waan soo arkay nolol iyo xaraga iyo anigoo 15 jir baan soo shaqaysanayo waan soo arkay Sacuudi Carabiya oo dharka dhar ugu qaalisan Dubai laga keenay Suudaan laga keenay suuqa Suudaan ka furayo xariir iyo dahab bas u yaalaan aniga soo xidhanay aniga naag hore inay u socoto rabta oo talaabsata rabta ayaa lahay maxaan talaabsadaa TikTok bama sameysana qaanada walaale maxaan talaabsadaa yaan u talaabsadaa ila maleeyay qofka walaal ka dhigtaan anigu bisku kay soo rogaa walaale ya aniga umbu isku kay soo rogaa walaal oo dhaya maxay sahra u dhaqaaqaysaa weligay qof ma dhihin qofkaasi muxuu u dhaqaaqayaa wala waxaan halka u fadhiyaa ayaan cidna dhibaato ka sheeganin in cidlada u fadhiyaa in Soomaali u raadsan waay aniga damaanta naag iska dhaayar baanay waa dhalaya dhiig way imanaya dilaaysiyo waan heli karaa inaan inta iska cararo oo iskorka iska saaro oo nolol raadsado ma rabo nolol waa ana waxa xasuusanaya wixii yaraanta liigu soo sameeyay qalbigaygii baan fiicnayn niyadaydii baan fiicnayn qofba meel buu ka fikirayaa aniga meel kale ka fikirayaa ma garateen marka walaalo aniga shalay kor Soomaali baa ii qaaday in isaaqoo gaaray kor iimay qaadin idinkoo anoo xanuunsanayo dhulka aalla oo ma tagaya
oo meesha aan xitaa gurina haysanin oon gurina xitaa haysanin gurina aan haysanin ayaad walaali caynayseen ood baahi igu caynayseen war maalka adduunyo nin shalay hayay baa maanta hela nin shalay hayay ayaa maanta hela sharci la-aan baad igu caynayseen waxaad dhahayseen sharci ma haysato ilaahu sharci ma haysato ilaahu sharci la-aan bay dadka ku cunaysaa sharcigii ilaahay baa isiiyey sharci la-aan ayaad igu cunayseen aniga qof xun ma ihi naag caqli badan baanahay naag dameer xunna ma ihi naag bilaa dameerana ma ihi yaa rag baa i dhibaateeyey rag ayaa i dhibaateeyey oo meeg ila qaadanayay weliba sacad muuse sheeganayay ayaa meeg ila qaadanayay sheeganayay ayaa meeg ila qaadanayay oo caynayay weligii intuu nin hawiye ii soo koray intaasan xanuunsanaya caytami ima caynin nin daaroodii weligii ima caynin waa aragteen meeg ilama qaadanin haye niman habar yoonisa daaqadayda ii soo fuuro oo iga caaya oo meeg aan kula qaadana yidhaahda yaa niman sacad muuse aba ay dhahaa niman ciise muuse aba ay dhahaa isaaqow maxaa idinka siya sidee baad tihiin cuqubo maydaan ka cabsanayn walaal cuqubo miyaydaan ka cabsanayn hablihiina qaarna meeg baad u furaysaano meega furta baad dhahaysaano ciddeen doonaan iscaaya qaarna waad riboodaysaano waad caynaysaan war waxani waa adduunyo waa laga tegayaaye hee dhaha aniga faraha iga qaado walaalo aniga in ijecel baa isiisa wax in ijecel oo ilaahay ii diray oo ehlil khayra oo daarood leh oo isaaq leh oo ummadda kale leh oo hawiyalo soomaaliya oo dhan leh ayaa aniga waxay siisaa jeebkaygu ma guro bishaan ugu yarahay baan tiktooktayda 500 oo dollar ka helayay maalinta 500 isoo dhacday dadkii u sheegay dhahay lacagta hala iga saaro aniguba de walaalo wixiina kalama bixi kartid oo ma garanayo de walaalo sidii bay dadku igu ogaanayaan soomaad garanin war bisha marka qaar baan 700 800 walaal helaya Soomaaliya beenana sheegay maayo waa nasiib badan wala waxaan helo ma qariyo walaalo walaalkan haysana Allah siiyo walaalo aniga xitaa dadka wallahi dad baan xitaa wuxuu turtuuri lahaa iga liita sida loo tuuro walaal ma aqaan sida loo tuuro wallahi walaal ma aqaano aniga markaan dadkii u sheegan dhan lacag inta leeg bay igu jirto 700 bay igu jirto inaan dirsadaan rabaa iga saara walaal dadkii hunguri baa walaal ka galaya hunguri ayaa galaya walaalo xitaa ma yaqaanaan dadka isaaqo gabadhan wax u celiya waxay imoodayaan walaal inaan waalanhay waxba kala galin walaal wax waan kala garanayaa ee walaal jaahil baan ahay waxa ma soo baranin wax waan kala garanay waxay imoodayaan inaan maskaxiyan u waalanahay wixii markaa iigu jira walaal way qaadanayaan anigana waan sii xanuunsanaya waan sii dhibaatoonaya waan sii warwaraya waan sii oynaya ya tiktokta waxaan doonaa kasii samaynaya soo walaal waa la caadiyo la iwaalay baa haddee waa la caadiya oo la iwaalay soo walaal ma aha oo la dhibaateeyo